gabar quruxsami loo dhameeyay oo 180 milyan oo dollar la siin doono ninkii guursadaa. Waa gabar aad loo koolkooliyo oo uu dhalay Cecil Zhao, maalqabeenka Hong Kong. Aabaheed wuxuu baadi goobayaa nin qaata malaayiin dollar oo hanta qalbiga qalanjada reer Hong Kong. Shabeelnaagood kastoo haasawaha looga haray ayaa u soo tafaxaytay inuu maankeeda iyo maskaxdeeda xado. In ragkii guurdoon ahaa iyo kii lacag doon ahaaba waa soo doonay. Ilaa 4,000 oo nin ayaa la soo xiriiray, boqolaal kalena si kafool bay u shukaansadeen. Gabadhan oo la yiraahdo Gigi Zhao, magaceeda dunida ku baahay waxa isla dhex maray iskaabulada calaftoonka. Warbaahinta caalamkuna si weyn ayay u faalaysay xogteeda. Sababta lacagta looga bixinayo guurkeeda maaha in gabadhani ay nasiib xun tahay ama inay naafa tahay. Waa aqoon-yahanad duulisa diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo maamulaha shirkadda aabaheed ee balaayiinta dollar ku fadhida. Aabaheed dhowr TV oo caalami ah ayuu ka sheegay inuu doonayo nin gabadhiisa guursada lacagtana qaata. Saasoo ay tahay guur waa lagala quustay. Nin damac guur geliya oo jacayl ku abuurana waa la waayay. Maalqabeenka Cecil Zhao waxa uu jecel yahay maruun inuu arko gabadhiisa oo caruur haysata. Maxaa yeelay wuxuu cabsi ka qabaa da'deeda 40 jirka sii cagacagaynaysa iyo dhaqan xumadeeda naadirka. Sababtoo ah waxa ay ka mid tahay dadka isku jinsiga ee isku galmooda. Waa bilyaneer ka mid ah maalqabeennada ismaamulka Hong Kong ee Jamhuuriyadda dadka China. Hantidiisa maguurtada waxa lagu qiyaasaa 2 bilyan oo dollar. Waxa loo tixgeliyaa inuu ka mid yahay ragga haasawaha ku waalan. Raadreebkiisa waxa ku xusan inuu shukaansaday wax ka badan 10,000 oo haweena. Maalqabeenka Cecil Zhao marna kuma qanacsana habdhaqanka anshaxa bini'aadamka ka baxsan ee gabadhiisa. Fadeexo ka dhalatay anshaxumadeeda ayaa haraysay magaciisa. Waana sababta uu u doonayo inay iska dhaafto dhaqanka foosha xun. Goortii ugu horeysay oo malaayiin dollar oo abaalmarin uu u ballan qaado ninkii guursada gabadhiisa waxay ahayd sanadii 2012. Xilligaa waxay ahayd 33 sano jir. Wuxuu ku yaboohay inuu 65 milyan oo dollar siinayo ninkii gabadhiisa la aqalgala. Maanta oo Gigi Zhao ay 44 sano jir tahay, wuxuu aabaheed ogol yahay inuu bixiyo 180 milyan oo dollar iyo gunooyin bille ah haddii la helo nin gabadhiisa guursada. Gigi Zhao waa gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Jack Nudge oo ah tan ugu weyn ganacsiga uu aabaheed leeyahay. Waxay ka qalin jebisay jaamacadda Manchester ee waddanka Ingiriiska. Mushkiladda uu maarada u waayay maalqabeenka Hong Kong waa inaan gabadhiisu wax dareena ragga u hayn. Waxay caadaysatay dhaqamada xunxun ee dumarka wax ka doona. 10 sano waxay la nooshahay Shan Eve, nin la moodka haweeneyda ee ragga iska dhigdhiga. Markii ugu horeysay ee maalqabeenkani warbaahinta kala hadlo ragga guurdoonka ayuu yiri, gabadhaydu uma qalanto nolosha kelinimada. Gabadhaydu uma qalanto nolosha kelinimada. Wax walba ayaan siiyay laakiin kuma filna. Waa qasab inay hesho nin guursada. Haddii China oo dhan laga waayay nin qanciya, waxaan filayaa ninkii ku habboonaa inuu joogo galbeedka Afrika, bartamaha Yurub ama Ameerika. Xaq ayay u leedahay inuu soo jiito oo farxad siiyo. Anna waxaan diyaar u ahay inaan siiyo lacag dhan 65 milyan oo dollar haddii uu guursado. Bilaha ay wada nool yihiin lacago gunooyin ah ayuu qaadan doonaa. Haddii ay caruur u dhashana abaalmarino qaali ah ayuu heli doonaa. Laakiin gabadhiisa Gigi Zhao dhagaha ayay ka furaysatay dalabka aabaheed iyo araajidii kumanaanka ahaa ee ka imanayay ragga guurdoonka ee doonayay inay nolosha kula midoobaan.